Asalaamu calaykum asxaabta galab wanaagsan maalin wanaagsan saaxiibada qiimaha badan waa idin salaamaya mar kale iyo waxaan rabaa cashar kale oo ku saabsan qaabka indhahaaga loo xafido ama loo ilaaliyo ama cimri dheer uu yeesho indhahaaga ay u yeeshaan. Sidaas darteed application-adan isticmaalno mid ka mid ah ayaan rabaa in aan haddana idinku tuso sida shaashadda loo madoobeeyo ama xilliga aad asxaabtaada friendskaaga aad chatting ama sheeko aad la sameynayso aad shaashadaada u madoobeyso indhahaagana caafimaad iyo cimri dheer u yeeshaan. Sidaas darteed waxaan rabaa application-ada mid ka mid ah weliba facebooka gaar ahaan messengerka ayaan rabaa qaabka shaashadda loo madoobeysto in aan idin tuso oo si indhihiina dee caafimaad iyo cimri ay u yeeshaan idinkana dee aadan indha xanuun iyo ookiyaalo qaarkiin dadka qaarkiis aan loo qorin. Sidaas darteed insha Allah step yar oo gaaban waaye waa idin tusayaa ka faa'iidaysi wacan. Marka hore waxaan tagayaa messengerka facebook weynaan tagayaa kadib waxaan kasii tagayaa messengerka markaan kasii tago waxaan taabanayaa messengerka sawirkiisa ayaan taabanayaa meesha chat ay ku qoran tahay kadib waxa ii soo baxayso option-adan midka ugu koreeyo oo dark mode ah message request active status waxaana soo baxayso kadib waxaan leeyahay marka si aan shaashadan cad u madoobeeyo meesha dark mode ay ku qoran tahay oo ujeedaan ayaan tigta saarayaa kadibna shaashadda waad arkaysaa sida isu bedeli doonto waka oo ujeedaan in shaashadii ay isbedeshay mar kale haddii aan tigta ka qaado shaashaddu way cadaan sida hore ku noqonaysaa. Haddaan tigta saaro active ka dhigana shaashadii sidaa bay ku madoobaanaysaa oo ujeedaan hadda shaashadii way madoobaatay. Messengerka asxaabteyda dhan friendskayga si caadi ayaan ula sheekaysan karaa ayadoo shaashadda madowdahay waa u ujeedaan indhahaaga haddii habeenimo xataa ay tahay xataa waxba kama dareemaysid si caadi ah ayaad ula chat gareyn kartaa. Marka insha Allah wakaas ka faa'iidaysi wacan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.